السلام عليكم ولا لهي سؤاله نوان أركي ما شاء الله waxay weydiinaysiin buuga xagee ka keentay link xagee ka helaa Yurub ma laga helaa xageen ka soo gadan karaa insha Allah su'aalihiina waa kuwaas waan wada arkay waqti aan waayay inaan soo duubo laakiin hadda idin duubayo biidnillah marka ila socdo insha Allah waxaa sameynaysaa magacayga marka dul tagtid fiidiyoyadayda dhan arkaysaa mutahay kor aad meesha waxaa ku qoran link taabo linkaas taabanaysaa okay walaalayaal link marka taabato waxaana ku soo bixi doono maxaa ujeedaa halkan waxaa ku qoran buugta so meesha waxaa ku qoran buugta meesha waxaa ku qoran YouTube meesha waxaa ku qoran PDF inta waxaa ku qoran WhatsApp iyo meelaha wax ka iibsado ama alaabta isticmaalo Amazon-ka marka halkaana taabanaysaa buugta and then Amazon ku soo baxay insha Allah accept adhaysa meeshan so accept marka dhahdid telefoonkaaga exactly waxaan kala ku soo baxay bidoon insha Allah waa kana buugeena bara asaasiga islaamka waa kana buuga alifka in sheegay cagaarkii orange-ka waa kana buuga quraanka maalin hore qoraaye suurata inna a'taynaka al-kawthar anigoo qoraayo dad badan ay soo weydiiyay and then waa kana dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa kana bara af Soomaaliga hadana waa kana alifkii waa kana baro shanta tiir al-islaam marka maanta oo dhan waa kuwana bugaagti walaalayaal marka link raaca waa kana everything next page hoosa dhacaysa hadana waa kuwana asigoo orange asigoo pink ABC 1 2 3 mataqaana hadana waa kana alif ba ta kale sidaas leh insha Allah sidaas ku soconeynaa biidnillah hadii aan link ku shaqeynin maxaa sameynaysaa hadii link ku shaqeynin maxaa sameynaysaa Google tag hooyo homeschool ku qor marka alaabihi dhan waa kaas hadana ku soo baxayaan YouTube Amazon mujada meesha click siinaysa biidnillah taala aad u mahadsantiin walaalahay qaali meel walba joogtaan waxaan rajeynaa khayr barako barwaaqo supportkiina aad ugu faraxsanahay hana iloobinina 3 maalin 4 maalin kastaba video cusub soo dhiga YouTube waka please support like share comment السلام عليكم ورحمة الله وبركاته